بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan ka galaynaa casharkii saddexaad ee kitaabkii riyaadu saalixiinka waa xadiidka 15 وعن أبي هريرة waxaa laga wariyay رضي الله عنه qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi salaatu rajuli ninkii tukashadiisa fii jamaacatin jamaaco uu ku tukado tasiidu waxay ka badan tahay calaa salaatihi salaadiisa fii suuqihi gurigiisa uu ku tukado iyo fii suuqihi suuqiisa uu ku tukado iyo wa beytihi gurigiisa uu ku tukado bidcan wa cishriina 22 darajatan ee darajo ayay ka badan tahay oo salaada uu ku tukado jamaacada ayaa ka badan salaada suuqa ama guriga uu ku tukado wuxuu xadiidkaani noo cadaynayaa ahmiyadda iyo fadiilada ay leedahay jamaacada salaada ah marka waa muhiim inaan ku dadaalno oo aanna iska dayicin darajaadkaas faraha badan inaanna iska dayicina ku dadaalno muhiim ayay noo tahay qofka muuminkaahina markasta faa'iido ayuu u joogaa faa'iidada aakhirana waa ka muhiimsan tahay faa'iidada adduunyada markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sii maaragtay sharxayaa wadaalika arrinkaasi xaasilun wuxuu ku xasilayaa anna axadahum ayaga midkood idaa tawada'a haddii uu weesaysto oo fa axsana uu hagaajiyo alwuduu'a weesadii uu hagaajiyo humma ataa uu tago almasjida masjidkii uu tago laa yuriidu xaaluusa doonayn ilaa salaata salaad ma ahana wax kale oo uu doonayo aysa jirin masjidkiina uu aadi laa yanhazuhu xaal uusan bixinayn oo uusan kicinayn ila salaatu salaad ma ahane qofkaas waxa kaxeeyey oo wadaahina ay yihiin salaad kaliya waa isla mid labada macnaa midda hore laa yuriidu ila salaata iyo tan waa isku macne lam yakhdu ma tallaabsado khadwatan tallaabo ilaa haddii uu tallaabsadaba rufica lahu shakhsigaas waa loo kor yeelaa bihaa bisababihaa tillaabadii sababkeedii darajatun darajo ayaa loo kor yeelaa oo martabo ayaa ilaahay uu kor ugu qaadaa darajadiisa jannada ayaa ilaahay kor u qaadaa waxuta waana la ridaahoo laga dejiyaa canhu shakhsiga xaggiisa bihaa bisababihaa tillaabada sababkeeda waxaa looga ridaa khadii'atun gaf iyo dembi ayaa laga daadiyaa xataa yadkhula ilaa uu ka galo almasjida fil masjidi masjidka ilaa uu ka galo ayaa dembigaas laga sii kala yaraynayaa fa idaa dakhala haddii uu galo almasjida masjidkii oo uu salaadii halkaas ku sugo kaana wuxuu ahaadaa shakhsigaasi fi salaati fii thawaabi salaati salaad thawaabkeed ayuu ku sugnaadaa salaad ajarkeed ayaa u soconaya inta uu salaada sugayo maalan maa kaanati salaadu inta ay tahay hiya salaadii taxbisuhu ruuxaas midda xabisaysa oo haysa oo waxa weeye masjidka ku haysa thawaabkaas marka wuxuu usoo xasilayaa qofkii niyeystay inuu salaada masjidka jamaaco ku tukado farqi ma kala leh inuu ku tukaday iyo inuusan ku tukanba marba niyadiisu haddii ay sidaas ay ahayd ajarkii waa usoo xasilayaa ayay leeyihin culummadu walmalaa'ikatu malaa'igtiina yusalluuna way ducaynayaan calaa axadikum midkiin ayay u ducaynayaan oo duco ayay malaa'igtu ku wadayaan maadaama inta uu daa'imayo ruuxaasi fii majlisihi booskiisii iyo meesha uu ku tukaday inta uu daa'imayo ayaa malaa'igtu halkaas ugu ducaynaysaa
alladii majliskaasoo sallaa uu ku tukaday fiihi masjidka dhexdiisa salaada uu ku tukaday salaad taam ahoo dhammaystiran oo sax ah meesha haddii uu ku tukaday waxa weeye malaa'igta ilaahay ayaa u ducaynaysa. maxay leeyihiin malaa'igtu? yaquuluuna malaa'igtii waxay leeyihiin allaahumma ilaahow irxamhu ninkaan u naxariiso, ilaahow naxariistaada see ninkaan. kow allaahumma ilaahow ikfir lahu, ilaahow u dembi dhaaf. allaahumma ilaahow tub calayhi ka toobad aqbal. qofkaana loo jeedaa nin iyo naag iyo ma kala leh. meelo badana axaadiistu ay ama gabar cabiraysaa magaceed ama nin magaciis la cabirayaa oo rajul laleeyahay, ujeedkuna uu qof yahay. marka malaa'igta ilaahayna waa u ducaynaysaa ruuxaas. marka xadiidkan waxaa laga daliishanayaa acmaasha waxa weeye salaadu inay ugu fadli badan tahay tawxiidkii markii laga reebo, salaadu acmaasha kale inay ka fadli badan tahay. maxaa yeele ducadan malaa'igtu waxay u ducaynaysaa qofkaas musalliga ah oo tukaday oo salaada meesha u fadhiya. maa lam yu'di, haddii uusan dhibin ruuxaasi fiihi majliska, haddii uusan wax ku dhibin. ay malaa'igtu leedahay allahuma arxamhu, ilahu naxariiso, allahuma akfir lahu, ilahu dhaaf, allahuma tub caleyh, ilahu ka toobad aqbal. malaa'igtu saasay ugu ducaynaysaa. maa lam yu'di fiihi majliska dhexdiisa hadduusan qof ku dhibin. waayahay maa lam yuxdith, haddii uusan sheekayn fiihi majliska dhexdiisa hadduusan ku sheekayn. ama maahana maa lam yuxdith, haddii uusan xadathin oo weesadu aysan ka burin, intaba waa la yidhaahdaa. intaba waa la yidhaahdaa. marka haddaan xadath uusan ka imaan ama maaragtay uusan sheeko gelin, ducadaas malaa'igta ayaa ku soconaysa. xadadkaas marka sheeko haddii aan idhaahno waxay noqon kartaa in uu wax kalaamo dunyo iyo waxyaalahaas uu ku hadlo. muttafaqun calayhi, hada lafdu muslim, waa imaam muslim lafdigiisa. wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama, ilaahay rasuulkiisa qowlkiisii uu yidhi yanhazuhu uu bixinayo, laa yanhazuhu uusan bixinayn, huwa bifatxi lyaa-i yan leerah iyo walhaa-i yanha iyo bizaayiza yanhazuhu, ay yukhrijuhu laa yukhrijuhu asagoo uusan bixinayn oo uusan wadin, wayunhiduhu uusana kicin, wax kale asagoo kicin salaad maahane aa looga jeedaa. wa can abilcabaas waxaa laga wariyay cabdullaahi bni cabaas binu cabdilmuطalib radia allahu canhuma. cabdullaahi binu cabaas binu cabdilmuطalib allaha ka raali noqdee waxaa laga wariyey can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisa wuxuu ka wariyey fii maa shay dhexdiisna uu nabiga uga wariyey, yarwii uu warinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam can rabbihi, rabbigiis uu ka warinaya tabaaraka wa tacaalaa, sha'nigiisu sarreeya. waxa weye xadiidkan xadiisulqudsiya la ihahda. waa xadiid cabdullaahi binu cabaas nabigu ka warinayo, nabiguna cabdullaahi binu cabaasaa nabiga ka warinaya, nabiguna ilaahay ayuu ka warinaya. xadiisulqudsiya la ihahda. waxaa ilaahay leeyahay qaala ilaahay wuxuu yidhi ama nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay ka hadlaya inuu ilaahay yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhihi kartaa, ilaahay labada waa dhihi kartaa. ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay kataba waa uu qoray alxasanaati wanaagyaalkii iyo wasayi-aati xumaanyaalkii. waa uu qoro oo macnaha amara alxafadata bikitaabatihima, ilaahay malaa'igta xafadada ah oo qorta ayuu faray inay qoraan wanaagga iyo xumaantaba. ama ilaahay wuxuu asagaa qoro cilmigiisii ayuu ku qoray calaa wifqi lwaaqic minhumaa. huma bayana, ilaahay waa caddeeyay intaa ka bacdi, oo ilaahay intaa ka bacdi waa uu caddeeyey wixii uu qoru caddeeyey.
faman hama qofkii damca oo hamiya bixasanatin wanaag qofkii damcoo agtiisa ay ku rajaxanto inuu xasano sameeyo falam yacmal oo aan samayn haa xasanadii go-aan uu ku gaaray inuu wanaag sameeyo mana samayn kataballaahu ilaahay waa qoraa haa xasanadii cindahu agtiisu ugu qoraa xasanatan xaalayta tii wanaag ah kaamilatan ee dhammaystiran ilaahay qofkaas xasano kaamila ayuu u qorayaa agtiisu ugu qorayaa waa cindiyatu makaanah aleera sharaf agtiisadan waxaa laga wadaa sharaf ee ma ahan cindiyatulmakaan meel ma ah marka ilaahay qofkaas wanaag kaamilahu u qorayaa kow waa wanaag kaamila wain hama haddii uu damco hamiyo bihaa xasanadii oo facamila uu sameeyo haa xasanadii kataballaahu ilaahay waa qadaraa haa xasanadii cindahu ilaahay agtiisa 10 xasanaatin 10 xasano xaalay tahay ayaa ilaahay u qoraa 10 iyadoo liannahu akhrajahaa min alhami ilaa diiwaani alcamal maxaa yeele hamigii uu ka saaray diiwaanulcamal usoo saaray ilaahay waa uu qorayaa hamigii xasana lagu qoraya kabacdi waa loo laalaabaya markaasay 10 noqonaysaa man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha ilaahay qur-aankiisa kariimka ugu kule ilaa 700 dicfin 700 oo jeer ayaa loo laabayaa ilaa adcaafin kahiira laalaabyaal fara badan laga gaaro aadaa ilaahay ugu sii laalaabaya waa qofkii xasanada xaggaas wain hama haddii uu damco bisayi'atin xumi ayuu qofka hamiyey xumi ayaa qalbigiisa kusoo dhacday inuu xumi sameeyo ayuu doonay falam yacmal ma samayn haa sayi-adii ee ficilkeeda waa uu ka tegay ama ku dhawaaqitaan waxay ahaydba ilaahay dartiisuna uga tegay u fiirso ilaahay dartiisa uga tegay xishood ugama tegin cabsi kaloo cid uu ka cabsanaya ugama tegin caajis ugama tegin istustus ugama tegin wuxuu uga tegay waxa weeye ilaahay dartiis kaliya wuu uga tegay kataballaahu ilaahay waa qorahaa sayi-adii cindahu ilaahay agtiis xasanatan xaalayta tii wanaaga xasanadoo kaamilatan dhammaystiran maxaa yeelay go-aankii uu waxaan xumaa inuu sameeyo ka laabashadii uu ka laabtay go-aanka xumida uu samaynayay ayaa khayr loogu bedelay kow u fiirsa ilaahay wanaagiisa wuxuu kugu qoray xasano kaamila markaad xumidii ka joogsatay wain hama haddii uu damco bihaa sayi-adii uu maanta damcay inuu sameeyo go-aan ku gaari fa camila waana sameeyey haa sayi-adii sayi-adiina waa sameeyey waayahay kataballaahu ilaahay waa qoraa haa sayi-adii sayi-atan xaalayta tii sayi-ah sayi-adaasoo waaxidatan kali ah hal xabbaa ilahay qoraa fiiri samaynta uu sameeyey kaliya hal sayi-a loogu qoraa ilaahay wixii kaloo wanaagga ahaa kaamilatun ka cabiraya laakiin sayi-adii ilaahay wuxuu ka cabiray waaxidatan allahu akbar waaye marka waa intaas muttafaqun calayhi ilaahay fadligiisa wanaagiisa ayuu xadiidku noo cadaynayaa وعن أبي عبد الرحمن waxaa laga wariyay cabdاللahi بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهما qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ilaahay rasuulkiisi ayaan maqlay yaquulu asagoo leh inطalaqa waxaa tegay 3 nafarin 3 nin oo miman dad ah kaana ahaaday qablakum hortiina xataa aawaahum ilaa uu ayaga dumay almabiitu baritaankii uu u dumay ilaa qaarin god uu u dumay fadakhaluuhu godkii ayay galeen 3 nin ayaa ummadii hore ka mid ah tegay markaasay habeenkii waxay u hoydeen god fanxadarad waxaa kusoo hoobatoo kusoo dhacday sakratun dhagax min aljabali buurkii xaggiisa ayay kaga soo dhacday fasadad waxay awday calayhim korkooda algaara baabalgaari godkii albaabkiisii ayay awday godkii ku xirtay kow faqaaluu waxay yidhaahdeen
laa yunjiikum inahu shaaniya laa yunjiikum idinma badbaadinayo min haadihi tan inkama badbaadinayo assakrati dhagaxda ahaa ilaa an tadcu llaha tacaalaa ilaahay inaad barisaan ma ahane bisaalixi acmaalikum acmaashiina teeda wanaagsan inaad ilaahay ku barisaan ma ahane wax kale oo waxaan dhibaatada inka badbaadi karaahi ma jirto. acmaashiina wanaagsan ilaahay ku barya bas intaas kaliya ku badbaadi kartaan. saddexdoodaa nin kasta wuxuu yidhi war nin kastoo ku tawasul camal wanaagsan haddaa laheed camal wanaagsan haddaa laheed nin kastoo camalkaagi wanaagsanaa bal ku tawasul. qaala rajulun wuxuu yidhi oo minhum ayagii ka mid a allaahumma ilaahow kaana lii aniga waxaa ii ahaaday abawaani laba aabe shaykhaani ee waayeel ah kabiiraani ee da-dooda waaweyn tahay. laba aabe oo da-dooda waaweyn tahay aan ilaahay u lahaa. haye wa kuntu waxaana ahaa laa aqbiqu inaanan casho lisin qablahumaa labadooda hortood cidna casho uma soo lisi jirin oo labadoodaasaan dadka u hormari jiray ciyaalka iyo waxa dhan ayagan ka hormari jiray. waa gartay ahlan ehel umaanan casho lisi jirin walaa maalan xoolana uma casho lisi jirin. cid aan ayaga ka hormari jiray ma jirto ilaahayow. fana'aa waxaa fogaaday bi aniga dalabu shajari geed raadintiis yowman maalin ayuu ila fogaadaa. sahan macnaha waan sahmiyey sahankii ayaa ila fogaaday. falam urix ma soo caraabin calayhimaa korkooda umaana soo caraabin xataa naamaa ilaa ay hurdeen oo macnaha ma aana ku soo gaarin soo jeedkiioo inta aan sahanka ku maqnaa ayay iga seexdeen. waayahay fa xalabtu waan lisay lahumaa labadoodii qabuuqahumaa cashadoodii ayaan u soo lisay. fa wajadtuhumaa waan helay naa'ibayni xaalihin kuu hurda macnaha ayuu hurda u imid oo dhag yiri. waa garta wa karihtu waxaana dhibsaday an aqbiqa inaan casho liso qablahumaa ayaga hortood ahlan ahel inaan u casho liso ow maalan xoolo macnaha inaan xoolaha yacni waxarihii iyo waxyaalihii kaloo cuntada caanaha u baahnaa iyo waxaasoo dhan inaan waalidka ka hormariyo ayaan dhibsaday uu yidhi. fa labistu waan nagaaday uu yidhi waa ag istaagay walxaal alqadaxu kalaxi ama dhakalkii ama koobkii calaa yadaya labadayda gacnood uu ku sugan yahay antadiru xaalan sugayo istiiqaadahumaa labadooda soo toosidooda ilaa ay hurdada ka soo toosaan oo soo baraarugidooda ayaan sugayay. waayahay xataa baraqal fajru ilaa waagu uu ka baryay ayaan meeshaas koobkii la taagnaayuu yidhi. ilaa waagu ka baryaan koobka halkaa la taagnaa. waxaasna waxaa ii geynayay birul waalidayn waalidkan u baari noqonaya. walxaal asibyatu ilmihiina yatadaaqawna ay qaylinayaan cinda qadamaya aniga labadayda lugood agtooda ay ka qaylinayaan. marka waxaa la yidhi waxaa annaga hadda shareecadeenna waalidka in iyo ilmaha waxaa horeeya nafaqada ilmaha horeeya. waxaa dhici karta inay shareecadoodii ahayd sidaas ay qabtay diintoodu inay sidaas qabtay ama waxaa dhici kartay laba ummadii hore ama waxaa dhici karta ilmaha waa la siiyey caanahoodii wax dheeraadahay rabeen. taasna waa dhici karta haleera culamadu waa ku fasiraan. kow fastayqadaa way soo tooseen hurdadii ayay ka soo tooseen labadii waalid anoo meeshii la dhakoola caanihii. fa sharibaa waa ay cabeen qabuuqahumaa caanahoodii caanihii aan usoo lisay ayay cabeen caanihii aan usoo lisay ayay cabeen. kow
allaahumma ilaahow in kuntu haddii aan ahaa facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas oo birulwaalidaynka ah ibtiqaa'a wajhika adiga ridahaaga dalabkiisa haddaan ilaahu u sameeyey oo arrintaa birulwaalidaynkaa raalli ahaasho adiga aan kaa rabay ilaahow haddaan u sameeyey fafarrij ilaahow fayd oo qaad cannaa annaga xaggeenna ilaahow naga fayd maa naxnu waxa aan ku sugannahay ilaahow naga fayd fiihi maaga dhexdiisa oo min haadihi min shiddati haadihi tan dhibaatadeeda asakhrati ee dhagaxda ah dhagaxa nagu habsaday oo albaabkii godka oon ka bixi lahayn naga daboolay ilaahow dhibaatadaas naga qaad haddaanba aan adiga dartaa u sameeyey ficilkaas birulwaalidaynka ah haa ilaahow naga qaad dhibaatadaas wuu yidhi kow fanfarajad waa ay faydantay shay-an wax uun ayay faydantoo xooga ayaa kacay dhagaxdii qayb ayaa kacday laakiin aan laga bixi karin oo wuxuu yidhi fanfarajad waa ay faydantay shay-an wax laa yastatiicuun xaalaysan awoodeyn ama shaygaasoo laa yastatiicuuna aysan awoodeyn alkhuruuja bixitaan wax aysan ka bixi karin ayaa ka bannaanaaday wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi allaahumma ilaahow kaanat waxaa ii sugan kaas marka uu ku tawasulo camalkiisa kii kala haray allaahumma ilaahow kaanat waxaa ahaata lii aniga ibnatu cammin gabar ina adeertaya taasoo kaanad ahaatay xabadnaasi dadka tan loo jecel yahay ilaya aniga la igu jecel yahay oo jacaylkan waa dhankee jacaylka ma ahan walaaltinimadkii qaraabanimadkii ee waa jacayl fidno kale uu heliso inuu naag ahaan u jecel yaho inuu ku dhaco ka macsiisto uu u jeclaa wa fii riwaayatin kuntu waxaan ahaa uxibuhaa gabadhan inaan jeclahay ka ashaddi maa shay kan ugu daran oo kalaan u jeclaa yuxibu rijaalu raggu ay jeclaadaan annisaa dumarka jacaylka dumar raggu dumar ay u qaadaan kan ugu daran ayaan u jeclaa oo macnaha faaradtu oo ah inuu ku dhaco la kulmo faaradtuhaa waan doonuu yiri calaa nafsihaa nafteedaan ka doonay oo aan kaa zinaystaan inuu yiri famtanacad waa ay diiday cani xaggay way reebtoonta cani aniga xaggay iga reebtoonto way isu kay diiday xataa alamad ilaa ay ku degto ku habsatay bihaa gabadhii sanatun sano oo mina siniina sanadihii ka mid a yacni abaaraha ka mid a sano abaaraha ku dhacday macnaha waa isku kay diidu yiri ilaa ay gaartay waqti abaarah fa jaa-atnii waa ay ii timiduu yidhi gabadhii oo iyadoo maadaama in adeerkeed aan ahay gargaar dalaba oo dhibaataysan fa acdaytuhaa gabadhii waxaan siiyey 20 iyo 100 diinaarin 100 diinaar 120 diinaaraan siiyey shardiyan laakiin ugu daro calaa an tukhalliya inay bannayso shardigeeda bayni aniga iyo bayna nafsihaa nafteeda dhexdeeda lacagtan qaadaan iri laakiin aniga adiga isu kaana bannee oo macnaha qaada lacagta laakiin aan kaa zinaysto uu yiri subxaan allah fa facalad waa ay yeeshay macnaha dhibaatadii ku kaliftay laakiin ma bannaano taasi oo waxa weeye laba shay oo aan la isku qasbinaa jirto haddii xataa qofka la yidhaahdo waa naftaa lagaa jarayaa waa lagu dilaa waa lagu tooganaya samee laba shay oo aan shareecadu ogolaan qasabkoodaa jirto qofka uusan yeeli karin haddii lagu yidhaahdo qofkan dil haddii kale waa lagu dilaya ma bannaana inaad dishid haddii lagu yidhaahdo zinayso haddii kale waa lagu dilaya ma bannaana inaad zinaysatid waa ay gabadhi waa ogolaatuu yidhi ayadoo aan raalli ku ahayn laakiin duruufta ku kaliftay xataa idaa qadartu markii aan awooday calayha gabadhii korkeeda oo inaan ficilkii ku sameey aan awoodo dul fadhiistay wa fii riwaayatin falamaa qacadtu markii aan fadhiistu yidhi bayna rijlayha gabadhii labadeedii lugood dhexdooda qaalad waxay tidhi ittaqi llaaha ilaahay ka cabso walaa tafudda hana jabin alkhaatama faraatiga ilaa bixaqii xaqiisa moogi wax kale ha ku jabin macnaha waxa weeye ilaahay ka cabso bikaaradayda ha jabin xaq darro oo macnaha nikaax xalaala waxaan ahayn ha ku jabin ay tiri nikaax xalaala kaliya khaatamkan oo bikaarada ku jabi fansaraftu waan gadoomi yiri canha gabadhii xaggeedaan ka gadoomay ittaqi llah hadiyaa isaamaydu yiri ilaahay cabsidiisii
waan ka tagay yidhi cabsidii ilaahay uga tegay walxal hiya gabadhina axabu nnaasi dadka tan loogu jecelya ay tahay ilaya aniga oo waxa weeye anigoo awood u leh inaan ka sinaysto macaasi kula dhaco haddana aan jeclahay ayaan ilaahay dartiis uga tagay cabsidii ilaahay oo ay ugu wacdiday ayaan kuwaan toomu yidhi kow wa taragtu waana ka tagay addahaba dahabkii alladii kaasoo acdaytu aan siiyey allaahumma ilaahow in kuntu haddii aan ahay facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaa'a wejhika ridahaaga dalabkiisa ilaah haddaan u sameeyey oo markii la i wacdiyey wacdigaas aan qaatay oo anoo macsidaas samay karoo gabadhii dul fadhiistay ilaahow haddaanba adiga darta uga tagay intaas ilaa qofkii ilaahay ka cabsan la yidhi ilaahay cabsidiisa aqbalay ilaahay dartiisuu sameeyey soo maa ilaah haddaan adiga dartaasaa u sameeyey oo xataa lacagtiina aana ka qaadanoona dhihin keen maadaama isukay diiday ilaahow fafruj ilaahow fayd canna anaga xaggeenna maa naxnu fiihi waxa aan ku dhex sugannahay ilaahu naga qaad fanfarajad waa ay faydantay assakratu dhagaxdii kayra laakina annahum ayagu laa yastatiicuuna ma awoodin alkhuruuja bixitaan minhaa xaggeeda ka baxana marka hore thuluth 3 meelood meel ayaa faydmay haddana 3 meelood meel kale 2 meeloodaa faydantay laakiin kuma filnaanay intaasoo dhan waxay ka bixi karaan wa qaalat wuxuu yidhi athaalithu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahuma ilaahow istaajartu waan kira qaatay ujuraa'a dad lasoo kiraystay ayaan kiraystay uu yidhi dad ii shaqeeyaan soo kiraystay wa acdaytuhum waxaana siiyey ajrahum ujuradoodu ayaan siiyey hayra rajulin markii laga reebo qof rajulkoo waaxidin kaliya rajulkoo taraka ka tegay alladii kii ka tegay lahu asaga u sugnaaday oo wadahaba ka tegay qof kasta wixiisiyaan siiyey laakiin nin ayaa wuxuu yidhi wuxuu uu lahaa ujuradiisa iskaga tegayba anoo anigu u diidan ayuu asagu iskaga dhaqaajiyey kow fa hamartu waan u kobciyo macnaha waa u maalgeliyey wixiisii ugu shaqeey ajraha ujuradiisii xataa kahurad ilaa ay badatay minhu ajriga xaggiisa al amwaal xoolihii ay ka bateen waa u barwaaqoo buu yidhi waa batay fa jaa-anii waa ii yimid bacda xiinin waqti ka bacdi faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallahi ilaahi addoonkiisiiow addi gudo ilaya aniga ajri ujuradayda ii gudo war xoogaagayga yidhi kistaydii dhan laheyd isii oo aan waagaas kugu shaqeeyay faqultu waxaan inuu yidhi kullu maa taraa wax allaala waxa aa arkay sidoo dhan min ajrika ujuradaadii ayay ka ahaadeen xoolahaas ma ujeeda geelaas iyo arigaas iyo lo-daas waxaasoo dhan ujuradaadii yaraad weyn kugu shaqeeyey ee iska kaxayso ujuradaadii ka ahaadeen oo min alibili geelaasa walbaqari lo-dii walqanami aragii iyo waraqiiqi addoonka waxaasoo dhan arkayda waa xoolahaagii ujuradii yareedaan kugu gadgadiyey waa kugu badatay fa qaala wuxuu yidhi nin hadda la yidhi maalan isagoo $10 doonanaya nin la yidhi $100,000 adaa iskale oo kalu noqdo marka wuxuu is yidhi waa kugu cayaarayaa ninkaani 10kaagii uu rabaa inuu ku boodbootiyo ee maahana waxaas runka ma ah fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdallahi ilaahi addoonkiisiiyow laa tastahzi ha kajamin oo ha jeesjeesin oo ha igu cayaarin bi aniga ee iseed xoogaagaygii yaraa isii khidmadaydii yareed nolol maalmeedkaygii qadadaydii isii faqultu waxaan inuu yidhi laa astahzi-u ma jeesjeesayo bika adiga kuguma kajamayo waa run waxaan dhan adaa iska leh fa akhada wuu qaatay maalkiisii iyo ajrigiisii kullahu dhammaantiis aniguna kuma qabsan oo isma dhihin waxaan adaa ku shaqaysatay adaa kobcisay ilaa ninka lafihii ciddii iska leheedaa shaqadaas kale wixii ka soo baxay ujuradana iska lehe ma ogta masaladaas dadku kama fakaraan aniguna ilaahay dartiis aan wixiisii o dhan faraha uga saaru yir hunguri weyn ima gelin fastaaqa wuu kaxaystay maalkii falam yatruk kama tegin minhu maalkii xaggiis xaalo ka hada shay-an waxba allaahuma ilaahow in kuntu haddii aan ahay facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaa'a wejhika adiga ridahaaga dalabkiisa fafruj ilaahow qaad canna anaga xaggeenna maa naxnu fiihi waxa aan ku dhex sugannahay fanfarajad waa ay faydantay assakratu dhagaxdii waa faydantay fakharajuu way baxeen yamshuuna xaalayan kuwa soconaya ayay baxeen muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariy muslim ayaa isku waafaqay marka niyada wanaagsan ayaa xadiidku u daliil yahay maadaama aan ku jirnay niyadii acmaashii oo cibaadadaas ay nimankaas sameeyeen saddexdaasba niyo wanaagsan ay ku sameeyeen markaas waa kuwa ku tawasulo camalkoodii marka midda kale xadiidku wuxuu u daliil yahay
in lagu tawasulo camalka saalixa. marka tawasulku mas'alo oon bannaan weeye maadaama qofku uu sababka waxaan ay sababka leeyihiin cidda wax bixinaysa ay ilaahay tahay, ama qofka ha ku tawasulo camal ama ha ku tawasulo dadkaas inay dhinteen iyo inay nool yihiin farqi xataa ma kala leh, maadaama ayaga sababba uusan u tiirinaynba. ilaa qur-aanku wuxuu sheegayaa in rasuulka lagu tawasulayay inta uusa dhalan calayhi salaatu wasalaam ka hor. marka axaadiidta saxiixana ay kusoo aroortay, dad kale oo rasuulka ahayn axaadiidta saxiixa ayoo lagu tawasulay kusoo aroortay. marka cidda oon wax loo tiirinayaahi oo wax la weydiisanayaa ilaahay weeye, laakiin ciddan camalka saalixaad ilaahay ugu dhowaatay iyo ciddii kaloo kaa wanaagsanba ilaahay aa wax ku weydiisan kartaa sida shareecadu ay caddaysay. muttafaqun calayh. baabu tawbati towbadii ayuu u baab yahay. qaala alculamaau culimmadii waxay yidhaahdeen attowbatu towbadu waajibatun waajib weeye min kulli dembin dembi kasta laga toobad keeno. dembi kasta in laga toobad keeno ayaa waajiba. ilaahay toobadda hana karsiiyo. fa in kaanat ilmacsiyatu macaasidu hadday tahay iyo dembigu baynalcabdi addoonka iyo wa baynallaahi ilaahay tacaala sha'nuhu, dembigan haddii uu yahay dembi ilaahay iyo qofkan dhex yaalla oo uusan bini aadam shaqo ku lahayn, laa tatacallaqu xaalaysa ku tacalluqayn macaasidaasi bixaqi aadamiyin aadami xaqiis, bini aadam xaqiis aysan ku saabsanayn, falahaa waxay leedahay macsiyadaasi halaathatu shuruudin shuruud oo 3. axaduhaa shuruuddaas midkeed an yuqlica ruuxu inuu fuqo weeye canilmacsiyati, dembiga waa inuu ka fuqaa. ruuxu markuu dembiga ka dhex baxo ayuu dhihi karaa ilaahayaan u toobad keenayaa, laakiin asagoo dembiga ku dhex jira hadduu yidhaahdo ilaahayaan u toobad keenayaa, toobaddaas ma ansaxto. wathaani ka labaad an yandama inuu qoomameeyo oo shallaayo weeye calaa ficlihaa toobadii macaasidii ficilkeeda, inuu ilaahay dartiisa uga shallaayo oo yidhaahdo maxaad ilaahay u caasisay, ilaahay dartiis ayuu uga shallaynayaa. lama rabo dhib kale oo ka soo gaara iyo xaalad kale oo uu gala iyo khasaaro kale iyo inuu u shallaayo. wuxuu kaliyoo u shallay karaa oo toobadiisu ku ansaxaysaa ilaahay dartiis. markuu uga shallaayo markaas ayaa toobadiisa ansaxaysaa. haddii kaloo dhib inta qabsado yidhaa alla hoogaya maxaa ii geystay, taas ma ahan shallayto. an yandama waa inuu qoomameeya calaa ficliha ficilkeedii oo ah inay macsi ahayd. haddii laakiin oo dhan kale uga shallaayo waxaan nidhi ma jirto, toobaddu nasuux ma noqonayso. wathaalithu kan saddexaad an yaczima inuu go-aansado weeye allaa yacuuda inuusan laaban ilayha macaasidaas iyo wixii la mida inuusan u laaban abaddan weligiis. waa markaas waa in uu ruuxii uu go-aan ku gaaraa inuusan waxaasoo kale u laaban weligiis. falaa yacuudu taa'ibu min alriyaa'i ilaa milih wahuwa riyaa. maalan qofkii riya iyo istusus ka toobad keenaya waa inuu go-aan ku gaaraa inuusan maalan riyo dambe uusan sameyn iyo istusus dambe. 3 shardi markii uu sameeyo fa idaa fuqida haddii markii la helo 3daas 2 shardi oo kaloo imaan doonto intuusan naftu aysan kusoo dhowaan qoraxduna aysan maqrib ka soo bixin lagu daro toobaddaas tooba nasuux ah aa leedahay. fa in fuqida haddii la waayo axadu 3 saddexdii midkood lam tasixa ma ansaxdo towbatuhu toobadiisu ma ansaxdo. wain kaanat ilmacsiyatu macaasidii hadday tahay tatacallaqu mid ku saabsan bixaqi aadamiin bixaqi aadamiin bini aadam xaqiisa, haddii ay macaasidaasi lo ku leedahay, fa shuruuduhaa shuruuddeedu 4 wey. haadihi tan 3 saddexda ah oo inuu dembiga ka foqo, uu ka shallaayo, uu go-aan ku gaaray inuusan u laaban 1, iyo shardi kale, iyo wa an yabra'a inuu ka bari noqdo min xaqi saaxibihaa macaasidan qofkii u saaxiibka ah xaqiisa inuu ka bari noqdo ciddii uu ka galay. maalan fa in kaanad hadday tahay maal xoolo hadday tahay, ow naxwa wixii la mid ahoo maalan ikhtisaaskii wixii la mid ah ikhtisaaskii muxtaramka ahaa, radda wuu celiyaa hu maalkii ilaahi ilaah saaxiibkii u celiyaa, qofkii iska lahaa cayntiisu u celiya hadduu mawjuud yahay, ama bedelkiisu u celiya haddii uu talfo oo qiimo iyo mathal ah. guri
haddaa boos islaameed qof haysto waa qatar dadka guryo islaameed iska haystaa ama dhul islaameed qofkii hal tilaabo dulmiyuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo dhul ah maalinka qiyaamaha qoorta loogu xiraa kow 7 dhul ah qoorta loogu xiraa maalinka qiyaamaha wain kaana xaqi aadamigu hadduu yahay xadda qadfin xadulqadaf iyo wanaxwi wixii la mid oo xuduudii kaloo sidii qatli iyo qadci iyo waxaasoo kale dil iyo goyn iyo makana ruuxii wuu makanayahu saaxibulxaqi minhu min alxaddi xadkii min istiifaa'i ilxaddi xadkii la makansigiisuu makanayaho iga oofsu yidhaa xadkaasaan kaa galay aw dalaba ama wuxuu dalbaa cafwahu cafwigiisuu raadsadaaho niyuu iska kay cafiyu yidhaa waxaasaad igu leedahay ee cafi ayuu yidhaahdaa waayahay haddii uu makansado weeye haddii kale oo uu makansa waayo qofka u waayo wuxuu niyeystaa inuu arrintaas marka uu awoodo inuu u celinayo inuu cafinayo waayahay wain kaana haddii uu yahay xaqii aadamigu kiibatan xan haddii uu yahay xan weeye maalan dadkii carabka isku haya markasta istaxalla wuu ka xalaal dalbaho shaqsigii minha kiibadii ayuu ka xalaal dalbaho wuxuu u yiri ayuu u sheegaa markaasuu leey iska kay cafi saas iyo saasaan ku iri laakiin markaas waxa weeye waa haddii dhib ka weyn uusan ka dhalanayn maalanba hadduu ka cabsanaa ka warran inuu dilo ama dhib ka weyn uu ka dhalanayo haddii taas uu ka baqayo oo dhib ka weyn uu ka dhalanayo istikfaar ah ku filan waa u dambi dhaaf dalbaya qofkan wayajibu waxaa waajiba an yatuuba inuu toobad keeno min jamiici dunuubi dunuubta dhammaanteed inuu ka toobad keeno dhammaanteed saqaa'ir xataa ha ahaato ruuxu inuu dunuubta dhan ka toobad keeno ayaa waajib ku ah waayahay fa in taaba haddii uu laabto toobad keeno min bacdiha dunuubta qayb ka mid a haddii uu ka toobad keeno saxad waa ay ansaxdaa toobatu toobadiisii cinda ahlilxaqi ahlu xaqa agtooda min daalika kaas uu ka toobad keenay addembi dembiga intaas waa ansaxaysaa wa baqiya waxaana hara caleyhi shaqsiga korkiisa albaaqi wixii soo haray ayaa ku baaqi noqday intii soo hartana waa lagu yeeshaa macnaha dembigii kale waa lagu leeyahay laakiin inta uu ka toobad keena waa ka dhacay waa dembigaas waa ka dhacay waqad tadaaharad waa ay iskaalmaysantay dalaa-ilulkitaabi kitaabka adiladiisii ayaa iskaalmaysatay iyo wasunnati sunnada adiladeedii iyo wa ijmaacu lummati ummadda ijmaaceedii calaa wujuubi towbati towbadii inay waajib tahay ayay isu kaalmaysatay kulli waa adiladu waa isku raacday qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi watuubuu toobad keena ilallahi ilaahay u toobad keena jamiican xaalatiin dhammaan ayuha almu'minuuna mu'miniintaanu lacallakum waxaa mudantiin tuflixuuna inaad liibaantaan waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigin ka dembi dhaaf dalba huma tuubuu laabta ilayhi ilaahay u laabta wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war dadkii allah rumeeyow tuubuu toobad keena ilallahi ilaahay u toobad keena toobatan toobad u toobad keena toobadaasoo nasuuxan nasuux ah toobad nasuuxa u toobad keena oo shuruuddeedii iyo wixii oo dhan oo toobad naseexaho naftiina ugu naseexaynaysaan oo shuruud yacnii shuruuddeedii iyo arkaanteedii wixii oo dhan ama toobad khaalis ah saafi ah shuruuddeedii wixii oo dhan wadata shuruuddeedii toobad wadata la imaada oo saafi ah wacan abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa ayaa maqlay yaquulu xaaluu leeyahay wallaahi ilaahayn ku dhaartaye innii anigu la astakfirullaha ilaahay ayaan ka dembi dhaaf dalbaa nabigaale calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu yidhi waa liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waayahay dembi dhaaf ayaa ilaahay weydiistaa maqaamkayga u cunma wa atuubu waana laabtaa ilayhi ilaahay ayaan u laabtaa maqaamka sare usii guuraya nabiga calayhi salaatu wasalaam fil yowmi maalinka dhexdiisii ayaan ilaahay u laabtaa aktar wax ka badan min 70 maratan ee jeer rawahu albukhaari nabi maxamed ale calayhi salaatu wasalaam cadad makhsuusa ma sheegi nabigu marka waa inuu qofku toobadii badiyo
وعن الأغر waxaa laga wariyay بن يسار المزني loo nisbeeyey رضي الله عنه qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ilahi rasuulkiisu wuxuu yidhi yaa أyuha الnaasu dadkaanow tuubuu laabta ilallaahi ilaahay u laabta fa innii anigu atuubu waan laabtaa ilayhi ilallaahi ilaahi ayaan u laabtaa fil yowmi maalinka dhexdiisa 100 maratin 100 jeer ayaan ilaahay u laabtaa rawaahu muslim 100 jeeraan ilaahay u laabtaa huu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabiga laabashadiisa iyo waa shuhuud iyo maaragtay xaalad oo annaga xaaladeennan kasii baxsan oo nabiga dad dambibo kamaba dhacaynba annagaana nol kusii tarbiyeynayaa toobadii nala barayaa rawaahu muslimun casharkeena intaas ayuu ku joogayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu wa axkam